مسوق ما سويهاي سأعوق مرستان معنوها يندعي مكي موغو نمقل مكي موغو نمقل مسؤوليتي وحلو سكري لو مامورو برشاد لغو كلامرون مني ما وحب الله ربو قبن كان مهرانا يو وضها إحلو بدعو أيو مسوق ماسوق يا هاي مسؤوليتي وحلو سكري لو مامورو برشاد لغو كلامرون مني ما وحب الله ربو قبن كان مهرانا يو وضها إحلو بدعو أيو مسوق ماسوق يا هاي منكي مامولا هنتدا مالكوينكا هرمركي مارينك تنقود للربي مشاريع لابو ديسو منافيع صدو شعبيقو عدانا ميلكالي لمرا أيام مسوق ماسوق kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii gaarka ah aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuqmaasuqu uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo wuxuu musuq maasuq yahay waa mar kaliya barnaamijkii gaarka ah dhageystayaal maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay 12 bisha Toddobaad haddaba qaybta hore dhageystayaal barnaamijka gaarka ah musuqmaasuqa waxaynu ka hadalnaa sheeko ku saabsan musuqmaasuqa qaybta maanta aynu ka hadlayno ayadoo 20 daqiiqo kadibna dhageystayaashu qaadka taleefanada ay kaga qayb qaadanayaan barnaamijka si fikirkooda ay u dhiibtaan isla markaana abaalmarin ay u helaan abaalmarintu waxay ka imaan doontaa sheekada dhexdeeda balse dhageystayaal barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonta Shamis Cabdi Geedi dhanka farsamada waa Cabdilcasiis Daahir Calasow waa mar kale iyo barnaamijkii ka hadlaynay dhibaatada musuqmaasuqa uu leeyahay si looga hortagi karo barnaamijka waxaa gacan ka geysta hay'adda marqaati ee magaalada Muqdisho idaacadda Banaadir ayaa baahisa marka hore waxaynu ka doodi doonaa amba aynu ka hadli doonaa musuqmaasuqa waxaa la sheegaa inuu meelo fara badan galay saameynta musuqmaasuqa uu ku yeeshay qaybaha caafimaadka ugu horeyn Shamis ayaa studio gula sugan Shamis ku soo dhaw barnaamijkan gaarka ah ka hadlayna dhibaatada musuqmaasuqa uu leeyahay si looga hortagi karo waa mahadsantahay Cabdicasiis waan ku dhawaay barnaamijka Shamis waxaa la tilmaamaa in musuqmaasuqu meelo fara badan uu galay dhanka nolosha bini'aadamka gaar ahaan Soomaalida uu noqday mid endemic ah oo dhinac walba ummaddu ay la qabsato jirkooda galay caafimaadka ayaa la tilmaamayaa in musuqmaasuqu mararka qaar uu galo waa mahadsantahay Cabdicasiis waa sida uu sheegtay musuqmaasuqa Soomaaliya ayaan ka hadli laynaa hadda dhinaca caafimaadka marka la dhaho runtii aad ugu badan yahay waxaad arkaysaa markii xataa goobaha caafimaadka aad tagtid dhakhtarka xataa hadii aad u baahatid adigoo hore tagay subaxii hore aliseedii oo tagay oo goostay waxaa imaanaya qof oo dhakhtarka camal isku fiican yihiin waxaa dhacaysa in qofkaaseed laga hormariyo oo meesha aad ku daashid asaga la gudbiyo marka waa dhanka lambarka ayaad ka hadlaysaa ma dhacdaa in qofkan bukaanka ah ee qofka ay ehel yihiin amba qaraabo ay yihiin amba asxaab dhow ay yihiin amba famil ay yihiin looga roonaado qofkan kale oo qofkan bukaanka ay suuragalta inaan la dhayin la soo booqan qofkan raashin xitaa loo keeno aad loo garab galo lacagta daawada loo dhaafo ma dhacdaa mararka qaar labada qof oo isku cudura aad iyo aad waa mid ay u badan tahay oo ka dhacday cisbitaalada dhakhtarkii wuu soo galayaa wuxuu arkayaa qof asaga xigo ehl xataa ka sokow aqoon xataa weji haddii meesha taal qofka haddii uu dhakhtarka uu ka saayo si fiicanaa loo daaweynayaa waxaa laga yaabaa xataa daaweyn qaasa oo dadka xataa laga qari ay jirto oo aan la siinin maskiinkii meesha jiifi alhiiska alla meeshuu ku dhibaatoonaya xanuunkii haddii rabo ku caabuqaya
marka dhibaatooyin fara badan oo dhinaca musuqmaasuqa ah ayaa ka jiro xagga caafimaadka Cabdicasiis dhanka isbitaalada madaxa bannaan ee gaarka loo leeyahay ka soo gudubno isbitaalada hay'adaha ay maamulaan qaarkood waxa la leeyahay in daawadii hay'adda ay bixisay marar qaar ma dhacdaa in daawadii la musuqmaasuqo oo daawadii la iibiyo mid ugu badan Cabdicasiis waa taas waxa arkaysaa daawadii oo loogu talagalay dadka masaakiinta isbitaalka jiifa in lagu daaweeyo oo lagu tabiibo ama lagu dhayboogi ay qabeen waxa arkaysaa ninka meesha madaxda ka ah hay'adaasi madaxda ka ah in uu sameeyo in uu daawadii wixii dhan uu soo qaato oo uu magaalada ku gado waxaad arkaysaa daawo macaawino ah waliba mararka qaarkood Cabdicasiis waa lagu soo qoraa in macaawino tahay waxaad arkaysaa xataa kuwa oo lama gedi kara xataa ay ku dhigan tahay suuqyada laga gato marka dhibaatada ugu weyn waa taas dadkoodan uma naxayaan waxa ka naxay dad kale xataa markii walaalaha ay ugu deeqaan daawooyinka meeshii laga rabay in si toos ah loo siiyo dadkaaneeto runtii taasna waxa looga hortagi karaa Cabdicasiis oo la xisaabtan iyo cadaalad hadii ay jiri lahayd ma u maleynaa in musuqmaasuq uu wadanka ka dhici lahaa waa maasantahay Shams Cabdi Geedi dhageyste waxaan soo gudbin doonaa sheekadii musuqmaasuqa ka hadlaysay kadibna dhanka fikradaha dhageystayaasha ayaan u gudbi doonaa qaybta abaalmarinta lacagaha dhageystayaashu jawaabaha ay ku heli doonaan balse marka hore qaybta sheekada ayaan soo qabanayaa barnaamijka gaarka aan ku hadlaynay musuqmaasuqa musuqmaasuq yahay siyaad uga maarsataa micnahu haydin dhacee inkii moogowna maqal inkii moogowna maqal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee inkii moogowna maqal inkii moogowna maqal أنا مهرانا يوم وضها إحلو بدعو أيو مسقماسق يا هاي مسؤوليتي يحلو سكالي لو مامولو أدر يورن في عنته وفي عن هذيك ستة نبات أدر إرتا isbitaalkan shalay markaa imaanaysay aniga ku keenay boqol shahaado wadato ka aqoon badan baladka carriiso baahan waxaan ku keenay inaan adeer aan u haata waartu ninka ku jira cunuga ka xanuunsan yahay waa adeerka daawada adeega waxa u baahdo ba u geynaysaa wax rasiida ku qorisid male wax lacaga amba maxallada sariir laga rabo male dadka kala sariir la qaada daawada iska fariy daawada isaga ugu roonaw hadii qof rafanayo uu meesha taagan haduu ku yiraahdo gaas baraxa banaanka ugu doon isaga barax u doonaysa wariyaa mudnaan dadkaaga ogow ana igu ogta ya ana igu ogta gabdhaha kula shaqeeya ee kalkaaliyaashan u sheegaysa waxa leedahay ninkaas shaqada wada balan waaye ana igu ogtahay cunugaas wuxuu u baahday isbitaalka waxay uga baahdaan banaanka waxay uga baahdaan intaba gacantooda ku cunuga walaalka ogow waa si fiican aniga shaqa xulisan ku jira xisaaban ku jira dhaqaatiir waxa gal leexayaan adiga kormeer leh adiga shaqa leh daawada mararka qaar go'aa jirta yeesan go'intiisa meel uu qari igu halee saasan kuuga ninkaan haduu ku hadlo waa nin waalidka uu hay aaw bukaankan qofka wakiilka oo la socday way kana ay warantahay waa fiicanahay ka waran bukaanka xaaladiisa horta xaaladiisa wallahi ma fiicna way iska fiican tahay dadaal fara badan uu u baahan yahay ugu dadaal u baahan yahay in lugtaan inay waxa u maleynaa marka aan fadhiisto xoogaa waxaan ka dareemayaa shirshiira ka dareemayaa suuc ka dareemayaa in dhaymo badan u baahan tahay u maleynaya marka dhiniciina xoogaa waxa waaye waxaan ka dareemayaa macnaha caajisaan ka dareemayaa marka waxaan u baahnaa lahay macnaha dadaal fara badan in aad muujisaan oo in agteeda ka fogaana u baahnaa lahay waa sax horta aniga aqoon hore kuma lihin daktarka laakiin ii ka sheegay in wiilka isbitaalka jiifo uu yahay mid la dhashay oo adeerkii dhalay familki ay yihiin familkeeni wiil ina jaarfan jilifa meesha jooga leedahay ma adiga aniga waaye haye
ها وإيش شيء شلي مرة أسرنا وإيش شيء ويل كاسان كعلى الدارمية ويل كاسان كوسو دريا نكاسو أديت كي تهايبا جوجو ماشي جافا جل هذا أنا مركل يقول لك هذا الدارمي أي واحد بهتان يودي وما سنت هاي بتسوى كافيلا هاي وحواي حلق الداود هرتين يسن دومرنا وبهنا أو سكرنا دقيقة يسن دافن كو متى كلويل كان كورقة بتاع وبهنا لقطة واحد بدنا وبهنا تعالى غبته ده مثال إن أديك أنت شفت كل هذا ما أنت كلتنا وحربا هنا كده دارنتو ماشي أنا كاب شقالك أنتم مقين كرمير كده أنا سيهستو فعلا ده كان لأنه والجوه قلنا قفك وحقب بعته وكوق بنا ما هذا وما سنتهاي هذا وما سنتهاي وريا نفسك السؤال معها أنا وها هاي محانا وسو قل هذا ويل كان حنوصنا تبعانك أو إيمان لا هذا محوي هالأختر كسان رقم كيسة adeer hoosh way socotaa ma la soo gaarin waarkiina marka la soo gaara la iimaana goormee la soo gaaraya daratii kooraysa kan ilaa hadartaan qofna soo kor istaaga ma lahan inta qayb kala duwan oo leeyahay dad halista qayb ku jiraan iyo dad oo dhaxdhaxaad halista ka daran wiilkan taayta halista wiilkan xanuunsan ka daran taayta aniga ma gooni waxa iguma aha oo wiil Soomaaliyeed Soomaalinimo ugu wiilinayo gurfaadaya u kor taagana anoo gabar Soomaaliyeed see adiga dhakhtarata maxaa wax u baratay wiilka daaweyn muslim wiilka isbitaalka ku jira isbitaalka ku jira warqanta maraa ku iimaano wajina maliyad mana xishoonaysid saaka la dhigay lugtaan ma dacwoona anaka wiilka dhayma iska dhaaf agtiisa ma la iimaanay saddex bariyo istaarka joog iyo aan la hadlaynin kan inta bariyo joog wiilka hal maalumaad iimaano wajigeeda macsantaa noo sheeg wajigeeda macsanta ma hoosh waa loo qabto ma la baxnaa oo idaacadaha man ka hadalna runta ma sheegnaa mise wiilkan waa daaweynaysa wax ka dhaxeey ma lahane horta mid idaacadaha isbitaalka ma ka taliyaan war dhaleeceed Soomaali iyo u furaya istaarkan shacabka Soomaaliyeed u furaya wax la leeyahay maalin kasta wax la leeyahay adeerkay baa ta wax kasto doonta ana ku sameeyna maxay ta waxa ku hadlaysid dad waaweynatiin sameeyna dhiigayga ku jira ninkan de haday dhig ka shaqeynayso waa la arki doonaa meeshan wadada Soomaaliyeed oo ahayd waxa qabanaysiin mal neertis wajilina ma tihiin maxaa dhacay buuqan muxuu yahay maxaa dhacay leeda doctorka weynaaya doctorka joogay anigu wuxuu ka ciyar suuqa adeegsata waxba qabanayno dadka dhaawaca u naxayno muslimka daaweynayna meesha ku soo deysata waxa ka halaysan bal sheeg isha waxa iga halaysan wiilka muslim jeeda meesha yaalo aye afar bariyo ku jira istaarka qof bil aadan oo kor istaagan ma laha oo aniga aan kaliin duurka uga soo gadaay waxay ku dhacday oo hurdisiinaya sidii hadii howlwadeenka isbitaalka warkiisa uu muran kula yahay waay cunugaaga baxso maxaa baxsan istaarka adiga maale isbitaalka ha istaar Soomaaliyeed waa shacabka u furan yahay adiga ma lihid waan lagu kiishay hay-adaha gargaarka fidinaya daawadan keen adiga lacag kala ma soo bixin anigu waa gudbaaya waxaan u gudbaaya wasiirada caafimaadka qofka sida loo dhayay qaabka loo daaweynayo anaga sheegay doctor afar maalmood qof ayaa dhulka aniga doctorka iisa sheegay adeerka inaad tahay ha ina jaafaajil qabaata waxaas maxay tahay wadanka ku haysin maxay tahay dadka ehelka way salaami karaan laakiin wixii daawada doontid waa lagu howlgelinaya aniga kaaba shaqaalaha u yiri muslimkan dhaawaca dhulka yaalo rafaadahayn ma loo imaanayo wiilkan subaxii maalin la daaweynayo waxa leeyahay urban ka dareemay lugtiisa dhaqan xumada daayano hadaa deyneen dad Soomaaliyeed waxa jira shaqaal kule arintan aan ku jirtiin wiilka Soomaaliyeed waa wiilkan aadaaraay eeg rafaad ka muuqdo wiilkan fiir lugto fulay meel uu la ayaaman waa fulay bariyaa dhageyso lugto ma ba hal kale wiilkan aasaaso aadaaraabeen maalin mana naxaysiin Soomaalina ma badtiin baadin wiilkaaga waa loo imaanayaa yaa u imaanaya Soomaaliyeed waa yaala maadan waa weynay qeyrada naga joojo loo imaanayaa wallahi wara heesaaya دكتورة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا ستا ما في عنتها ويلكي يورن ويلك ورويه الحمد لله وبرواقيسية واحد باتاء وقوى مجرو ساكي واللويمي والداوي وليقا مرة سناي ويلكا وليقا مرة سناي وليقا مرة سناي حق ضرمت مسلنا دوك يا العذارة كاغا عبرو طبينا ميا أمكاري أدول قد الضرع وليقا مرة سناي قال الله داري وولي جوغي قبر بو إيس هدري حالات دو آد بوحيا بقول فيه بقول قال الله داري مرة سناي وجدت قيلنا يسلم حيثا إسلامتها ما دريمي كرو waxay u baahan tahay ilaa hadeertan waxaan fahmay ma ha ma fahmaysido walaalka wastarka jooga sayda ma fahmi kartid yaafka qabyaalad baa ku jirto way uqdisiin waxay dareemayaan in wiilka tan jaafaajir iskutiin maana meesha waxa sameeyaan jaafaajir baa taa ka dhacdaba daawo iyo mushaari wixii loo soo qoray waa loo keenay Soomaa wax walba loo keenay diyaar xaaladiisa aad u wanaagsan tahay wax warbaahin wasiirka caafimaadka arinta u taala meel kasta la gaaraya ogaada dhibaatada wajahada soo xujiraan walaal waxaan ku sheegayaa wiilkan muslim aniga aabahay ma dhalin hooyadan ma dhalin anna ma aan dhalin taasoo habeen maano aadaara aad isaayeerayso
أنا جيت كسر قاضي استال كان استال شعب كفر صامها واستال شعب كفر أفر مال موضع بدن بان دغيسana ay buuqiina أفر مال موضع wiil kan aan rakiis dhaqayaan daawo banaanka uga keenaya mid kan waarka igula jirane habeen imaan dhaymada iyo daawada iyo mushaarada iyo wax adduunku ayaa bari aniga faajilaq baan aad tahay adeer baan ku ahay war adeer buu ku yahay u daawo ee ka socotaa isbitaal ma aha kan laga daawoonaya shaqataale isbitaal uu yahay laakiin dadka ka shaqeynaya dhaqaatiirta dad ahayn wiilka kontor la sameeyo wiilka lugtu wiilka fiidi orto wiilka waa ka xaga fadhiya kowde ninkan loodayo aha saakay hay qofkana markii la daaweeyo hadii uu caafimaado waxa wanaagsan xoogaa asaga laftigiisa inuu sabaash ka sii dardarin marka xoogaa asagoo fiican haduu si caleeso adiga laftirkaaga fiiritaanka hal habeen daawo lama siin دكتور ساك أنا قيبتان أصود لي كالكاليال هوشودن والق wata wiilka halay tusiyo wiilka waakan lugta dhawac kafeed waakan ay fayd lugtan maxaa kaaga dhacay marka hore adiga lugtan gaariyaan ka dhacay marka lugtan daawo male lugtan goysmo waaye lugtan waa ortay ma bahadli karo lugtan dadka akulu gooynay niyo umada u dhaaratay maalinta imaanaysa meesha umada u dhaaratay macni meel mari ka dhayaysiin habeen maalin agta lugta ka uraysa caafimaadka ma arkaysa kaata la gooyna kan ma la gooynaay la gooy karin waxba kama qaban karno warqada saxiixayna banaanka u qaato amba isbitaalada kala geeya hadii ay tahay lugtan way dhimato waa la gooynaa lugtiisa adiga saa iska dhaadhacsiisa leeyahay mayd farbadan sameeyay tan dhaxtar way helaysaa mar walba waa ku sheego beenta way baxaysaa runta la harayso mar walba waan ku idin sheegaa meel walbana waan ka sheegaa aniga waxaan u joogaa aniga ummadda musuqmaasuq lagu haayo ayaa u raadiyaa shaqo kale ma qabto hadda dad baa soo booqanay buuqiina iyo qayladiina wax badan waa ku dhageysanay inta hadlaysa in nin macnay meesha kula jiro maalin walba loo imaado ala dayaya ha kana aan la fiirin dhibaato saydaan hayso xataa uu qalday intiisa la dhahay dariskiisa ma bareysanayo inuu dhax xataa ma garan waa waniyo ninkaan fiiriyo waa kan tasu riimayay naagana hala fiiriyo bal abay wuxuu yiri naagtan waxa ay ma dareemi karaay laba sar isku dhigay labada nin jiifaan waxa ay ma dareemayo yiri kiisa daawa la siinaya mishaarida loo keenaya waa la dhayaa caana banaanka looga soo gadaa wax kasta loo qabana kan muslimna ag yaalan aadarkiisa habeen imaanka ma seexdo war lugta la goynayo keenana haysata anaga isku dhignay anaga isku keenayna waa because kuwaan oo kala ugu jiro ila qabiil adduun garan waay qabiil u fiirinay war Soomaalinimu fiirin waa ninka waa nin garabkiisa bari istaagi lahaa war waxa baabiinaysu waa garabkaada kiisanu yaalo yarka aad qaraabada tiin waxa leeyahay si kasta oo loo daaweeyo waa riisa la'ya maxay tahay dhibka intuu ku jira daawan siinay wax walbaan siinay qalajaan qataraha la duray muxuu u riisa la'ya ninkan qaladka sameynaysiin u reesan laayo caafimaad u helay isbitaal waa iblis yaa haday tahay sida isbitaal loogu dhaqmayaa gurigiina camal loogu dhaqmayaa in hebel waa in adeer waa bukaanka ma naxdin mana fiirin kana jiifo qaylada ka daa fiirin leed halkaas mid kaliya waa baraba booliska baraba inuu imaado runta banaanka imaanayso waa la kicinaya cunuga adiga bukaana meeshan jiifo aamus fadlan muxuu u reesan lahayaa cunugkiiska san ka rabaadi caafimaadka ilaahay horta haye laakiin qofkan dhibaatada haysato waa dhibaato culus wax walba u baahan yahay oo sameeyay nin waxa u maleynaa dhibaatada waxay ka jirtaa dadka masaakiinta oo laga hormarinayo wallahi waa macquul laakiin haddaan ka dib dhignana adeer is cuqdadeenayo laakiin adiga ku dhaado waxaan ku yiri u roonaw adeeran ku yiri mooyee dadka kala taaban kuma dhiin mugti waay ninka lugtiisa u urto waa goysan maanta ma ogtaa qarad adiga ka dhacay inuu yahay qarad aniga dhacso ku yahay waxa ay dirtaan qabanay adoo qaladka wixii adiga uu ku diraayo hadda qaladkaaga dhigaya taas maaha in adeerka u roono waa cunuga adaa taas ku abaabiyo oo yiri ani meedade farfanaya xataa baraxa iga doon duu ku dhaasa baraxa u doonaysa marqaatiyaal joogay maalinta ideede mama waxay ahayd macalin muuqadoore musuqoone muuqadoore macalin muuqadoore musuqoone muuqadoore nikii masiga barto kumshba ma tira mintina soo afaysayo musuqa tabarbaynayo shaciga meel marinayo bareekiyo dabinka dhigan ismoogaan ha ugu dhicin ismoogaan
ugu dhicin maamaaba waxay ahayd macal cunin muuqan doone musuqa cunin muuqan doone oo aniga ugu dheedan waxa waaye wax walba oo dhacay aniga waa maqlay waxyaabaha aan raadiyana waa waxaan oo kale meel walba waan taaganahay wadiina waa saxan tahay waxyaabaha qaar lama qaadan karo laakiin anaga wax isfahansiin u kaadi bal soo kuma dhihin ninkan lugtiisa dhay isbuuci mar aba laba mar ma urteen weligaa ma dhayin ku istaagin دكتور أنا واحد أدري علي أدري صور إلهي إسلام تقيلنا بدنت سيدنا لوجا دعسينا يا لوك تويل كا وجويس مودن تاي نك ماشوا نقول يا ما لقى دعسينا واحد سمعنا واحد لي هاي لوكتان دكتور هبي لو حكى قبان كرو أنا قلب كاسون وجو يعني اللي قلب كداودي قلب كا استعمالن ونجم مقيا إسبتال كن ولما السوق لا دكتور هبل أو حكى قبان هاي دكتور هبل كأدرينا مرك صدقني وعادي هذا مرة قبل أنا أقول شيء جايو أنا صدقني أقول شيء جايو أرجع خيسو أي هودي ودين ساتا صح ما قرنا إيه نرجع وحقول الله ودكتور كمشي وسري ماذا حمل كريسو ولا صلاح على مجلس أي وانجعلنا ويلك عافماد إنه هلو وانجعلنا ويلك إن لقتي وبدبادو إن قيب كستنا ده يكون تخصصي صح حتى هدي أنا على الجنة لقتان إني جوز مجرته أيان كبقينا لقط بارتنا اللي جوز مية قيب كمدا إني لمتى أيان كبقينا لكن وحاجة ردد سبيشال برتي قيب تاس لقط بس سيد ردد دكتور ما شاء الله يا جوجو السجا وتجيسا حافظ الله بيتمنى تفتل كله فريستا دكتور كادو جينيسا ويل كاجا إننا نصود عيننا لعقد وبحث السبتال كله بقول دورنا وقصينا مركا وض ويل كسبتال كاس جي دكتور فيري ميديا كهوس بحين ويل كاجا هدي ويل صوماليات أنا جي أديكو أصي منها ويل كان الميديا جي أدوك جدا أتدرس سوسة أنا جانا ما دلنا من إلا دلانين أبي أنا إسكميدا أنا لوكتي سنجوسم أهني والله يكره ده ويل كان هي آخر هبل عادي Soomaali mada gabadha ku jirto oo wiil islaameed oo dhaawactay soo qaada caruurteeda gurigeeda inta u soo dayacad inta ay dhakhtar ku hayso waxay u sameynayso waa Soomaalinimadaas xagee ka damiirka meel ka aad weydii ragaan damiirka maliid Soomaali sawtaan hadda la laba boqol ka ma rabnaa anaka wiilka waa dhay kartiin dhaya akhriska jooji aawdiin iyo cadownimada okay wax kala hadlaaya waar ka dhanka weyseen macna wax isdaysin naagta khayr badan iska bixiimiya meedika yeelay waa tahay qaladkaas qalad naga dhacay waaye adduunkan waxa ugu xun musuqmaasuq in la geliyo caafimaadka waa gelisay madina waa maasan tahay waxaan sameynaynaa dhakhtarkan wacayna inta operation lagu sameynaa inta lagu dhaqaa daawooyinka galay qarashkaas faraha badan nacaynay anigana bixinay waa maasan tahay malaka mar dambana ha ku dhaqaaqin nin garabkaaga ina reehebel iyo Soomaalinimada ku bilaab mar walba waxa meel ku tagays waa Soomaalinimo ka xumaado markii tiri waa garabkaaga ninka lu taarifina bimanta oo goys sidaan ka soo wada markii tiri ayaan ka xumaaday inan kan meesha ka shaqeeyana kulay anigana shaqada u diray isagana waa la hadli doonaa لا هذا لو أنا عنق على بر هذابيه مسخ ديدني كل شجان كدشاي هيا يا ويلي بين دوفا وعد حلقن كل شجان كدشاي هيا يا ويلي بين دوفا وعد حلقن وعد حلقن أجل أبو أسيبك أتبقى الكريفها wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee
waa hagaag dhegeystayaal qaybtaasi waxay ahayd qaybtii sheekada barnaamijku waa barnaamijkii gaarka ee musuq maasuq aynu kaga hadlaynay oo dhegeystayaashu inta badan qaadadka taleefanada ay aalaaba kaga qayb qaataan haddaba qaybta wicitaanada dhegeystayaasha ayaanu jecelnahay inaynu bilaawno waxaan u mahad celinayaa Shamis Cabdi Geedi oo qaybta hore igala qayb gashay barnaamijka iyo waliba dhegeystayaashii sheekada la socday haddaba dhegeyste waxaad naga soo wici kartaa taleefanka eber 655 si markaa fikirkaaga aad u dhiibato su-aaluhu waxay noqonayaan su-aalo lagaa weydiin doono sheekada iyo guud ahaan musuq maasuqa saameynta bulshada uu ku leeyahay haddii aad guulaysatana abaalmarin ayaad heli doontaa ayadoo inta badan abaalmarinada dhegeystayaashii guulaysatana sida u dhaqsiyaha badan ay u heli doonaan waxaan bilaabayaa dhanka qaadka taleefanada iyo dhegeystayaasha haddaba dhegeyste waxaad naga soo wici kartaa taleefanka inta badan barnaamijka aynu ku qabanno ee eber 655 qaadkuna waa inoo furan yihiin wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataa dhegeystaha ugu horeeya ee qadka ku jira ayaan fursad siinayaa dhegeystayaasha mar kale waxaan ka codsanayaa in raadiga ay iska fogeeyaan amba ay iska baktiyaan si codka uu fasiix u noqdo dooduna ay noogu wanaagsanaato haddaba qadka dhegeystaha ku jira ee noqday midka nasiibka u yeeshay inuu noqdo dhegeystaha goobaad ee maanta halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. marka hore magacaaga iyo deegaankaad naga soo wacayso ولا المقعد هو عبد القادر ظاهر عبدي أو جوا دجمة ورث نبض قبل كنادر. cabdiqaadir daar barnaamijka mala socotay عاديات hay soo dhowow barnaamijku wuxuu ka hadlayay sheekada waxay ka hadlaysay barnaamijyada musuqmaasuqyada ka jira hospitaliska taas oo micnaheedu ahaa nin dhakhtar oo wiil adeer yahay isbitaalka keenaya taasuusan aqoon u lahayn caafimaadka kadibna dhahaya in hebel waa walaalka dadka bukaanka ka soo agdhaweyso daawooyinka ugu fiican isbitaalka qualitiga fiican leh controlka fiican leh ninka walaalkaasi ninka patientiga kalena meesha xafiirin xataa hadduu baabaa uu dhimanayo xataa lugtiisa goyso ama gaangrina ku baxso arrintaas maxay noo qortaa marka arrintaas waxay noqon kartaa arrin aad u dhib badan oo ah sadeexo weyn ku ah dhammaan qaybta caafimaadka ee Soomaaliyeed sababtoo ah qofka dhakhtarka wuxuu soo dhaartay oo 6 sano wuxuu garanay in dadka dhan oo balance uu sameeyo oo qof kasta uu sameeyo inuu wixii caafimaad oo aqoontiisa ah uusan ka hakranin musuq maasuqa dhinacyada ugu badan ee saameynta uu ku yeesho bulshada dhexdeeda maxaa kamid ah waxaa kamid ah number 1 dhakhaatiirta hadda waxa kamid ah qof arkay qof dhakhtar oo xanuunsan oo qof xanuunsan oo la leeyahay qofkan qofkaas soo galo oo laga yaabo qofkaas inuu cudur khatar u qabo markaas uu dhiman karo waxa laga yaabo qof kale oo laga yaabo cudur caadi uu san qabo oo caadi oo hadii la sameyn karo preventive xanuunaadada siin karo oo roonaan karo oo leeyahay hal soo gudbiyo hebel dhakhtarka loo soo gudbiyo oo qof dhakhtarka loo soo gudbiyo laga yaabo qofka dhakhtarka shaqeysto tika miskiinka banaan ku dhinta laga yaabo waa maasantaa waan kaaga mahad celinayaa sida habboon ee barnaamijka marka aad uga qayb qaadatay iyo qaabka saxan ee su'aalaha aad uga jawaabto waa maasantahay cabdiqaadir bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo madaha loogu dhaco ayuu musuq maasuq yahay qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan fursad siinayaa si markaa barnaamijku uu igala qayb galo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ha marka hore magacaaga iyo walaal iyo deegaankaad iga soo wacayso walaal waa saara macalin maxamed degmada yaaqshiida jooga saara waxaa kamid tahay dhegeystayaasha aalaba barnaamijka qayb qaata marka haddii aad barnaamijka la socodso dhow ها برنامج كلا لا سعودي سوى هنا هذا ولا سعودي ما سقنا معه واحد أنا سقنا في شيء كذا نفسي هذه هذا ولا سعودي ما سقنا سقاط وجرا يعني هذا فلان لا يعني مدة وحنكشف في الإسبيطال. أيه. مركا ما سقنا وجرا واحد أركيسا كنت قف معاه تدل أسيس دي أو لمبر قصي فدي قف أنت تقدر دربي هرب بدون اللي هي inta qofkii salaamay meesha fadhiyo narsanka ama qofkii magacaada jiska gareynay oo meesha magacaada qoray oo intuu imaado la fadhiisto oo salaamo hore dhakhtarka loogu gudbiyo jawaabtiisa soo baxday nin saaka shalay la dalemiyey oo shalay inta dhiig laga qaado jawaabtiisa soo bixiyeysa waqti dambe haddana habeenka dambe qoraxda kaga dhaceyso marka arrimaha noocaas oo kale maxay noqonayaan
waa maasuq maasuq waxayna u baahan tahay in laga hortago runtii dadka sameynayaan ay iska daayaan maasuq maasuqa adiga hadii mar aad doctor tahay oo xarun caafimaad joogto midka kula dhashtay iyo midka kale walaalka oo caafimaad baahida caafimaad u imaado isbitaalkaaga inay ku tinaadaan marka saar musuq maasuq qaybaha ugu badan uu saameeyay mujtamac ahaan Soomaaliya maxaa kamid ah waxaa kamid ah dadka bukaanka ah ee ka yihiin waxaa kamid ah gawaarilayda oo jidadka marta waxaa kamid ah dadka ayaga xataa maasuq maasuqa lagu sameeyo ganacsiga masaakiinta waa badan yihiin cadcasho Soomaaliya wax soo koobi karo Soomaaliya kaalinta koobaad ay kaga jirtaa maasuq maasuq waa maasantaa waan kaaga mahad celinayaa sida habboonid barnaamijka aad kaga soo qayb gashay qaadka xiga dhageystayaasha ku jira ayaanu fursad siin doonaa namaqal ninkii moogo namaqal mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo weli waxaynu barta kaga jirnaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida looga fogaan karo hay'adda marqaati ee barnaamijka soo qaban qaabisay idaacadda Banaadir ayaa baahinaysa dhageystaha xiga ee qadka ku jira ayaan fursad siinayaa halo salaamu calaykum وعليكم السلام Banaadir kala wanaagsan wanaagsan oo wacan adigoo codkaaga kor u qaadaya magacaaga walaal iyo deegaanka naga soo wacayso sidoo waa Maariya Axmed Abdiraxmaan waxaan joogaa xaafad suuq xalay degmada Maariya markii ugu horeysay barnaamijka qayb gashay in badan aad ka soo qayb gashay Maariya yaqid see lagu yahay suuqa xoolaha qaybta yaqid mise qaybta waliba yaqid hay soo dhawow وعندنا maanta barnaamijka wuxuu ku saabsanaa in dhanka goobaha caafimaadka in dadka caafimaadka ay ku saabsanaa dadka oo qaraab ahaan oo wax loo qabanayo dadka kale masaakiinta dhaawaca culusta aan wax loo qaban meel fiirin dadkaasi oo ilahaan loo fiirinayo ku saabsanaa Soomaalida inta badan dhibaato ku geystaan musuqmaasuqa dhanka caafimaadka iyo dhanka dadka dhibaataysan marka haddii Maariya waxyaabaha noocaas oo kale ay dhacaan maxay noqonayaan waan ka xumahay Maariya qadka ayaa ka go'ay sidaa daraadeed qadka xiga dhageystaha ku jira ayaan jeclahay inaan u gudbo si barnaamijka markaa uga qayb qaato barnaamijku waa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida looga fogaan karo halo salaamu calaykum assalaamu calaykum raadi iska fogay codkaagana sar u qaad magacaaga iyo deegaanka naga soo wacayso magacaaga sheekay magacaaga ii sheeg magacaaga runta ii sheeg sheekay wananees maxamed cabdullaahi xasan laga qanac mareere maxamed cabdullaahi soo dhawow adhow saacad haye barnaamijka ma la socotay waa la socda saacad haye saxad barnaamij manaha waa la socday waxaan ula socday qofka manaha dhaawaca bukaanka haddii ilaahay weli soo gaarsiiyo oo la geeyo haddii oo qof masaakiin yahay la taaban maayo waa la iska dhaafayaa qofkii lacag le ayaa la daawanayo qofkii la yaqaano karate haye qofkoo doon uu jab lahayn waa masaakiin yahay meesha looga tegaya qofka daawanayso waa la iska dilaabsaya waa la imaanaya waa laga tegaya qof matananayso asagoo urag ee loo imanaya marka su-aal halisiisa maal leeyahay intaan kusan waaliyno wana u waadno arrimaha noocaas oo kale marka hadday dhacaan maxay noqonayaan arrimaha noocaas oo dhacaan qofka ninka meesha dhimanaa in leen qofka manaa oo xukumayso qofka lagu soo biyo khubadaas aan la qaabin maxay noqonaysaa qofku inuu qofna diyaalo goobtiisa oo la jiro waa maasan tahay waan kaga mahad celinayaa sida habboon uu barnaamijka markaa kaga soo qayb galay weli waxaynu barta kaga jirnaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida looga fogaan karo marsataan micnuu hayn dhacee ninkii moogo namaqal ninkii moogo namaqal mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco qaadka dhageystayaasha ayaan weli fursad siinayaa dhageystaha qad ku jira halo salaamu calaykum calaykum salaam magacaaga walaal iyo deegaanka naga soo wacayso
deeqa barnaamijka ma la socotay deeqa haye maanta waxaa ku saabsaneed sheekada qaybta caafimaadka halkee naga soo wacaysaa deeqo cabdicasiis cabdilcasiis soo dhawow marka maxaad tiri maanta waxaa ku saabsaneed sheekada calashan qaybta oo caafimaadka iyo dhakhtaryaasha haye markaasna waxaa naqrintaa midkii lacag le inaa qaadato midka oo lacag le inaa waa maasantaa deeqa waa dadaashay qadka ka go-ay laakiin waa kaga mahad celinaya fikirkaaga sida habooneed barnaamijka markaa uga soo qeyb gashay dhegeystayaasha dhanka fariimaha ayay qudhooda dhanka abaalmarinta fursad waynu siin doonaa balse wicitaanada tooska ah dhegeystayaasha ku jira ayaan weli fursad sii siinayaa dhegeystaha xigay qadka ku jira halo salaamu calaykum وعليكم السلام صاحب waan fiicanahay magacaaga منور محمد حسن كنا مجا دير هيد وعاد حافظ هودن دغن هودن حافظ البركه axmed nuur barnaamijka ma la socotay صاحب haye soo dhawow haddii aad barnaamijka la socoto soo dhawow وادو صاحب maxaynu galabta kaga hadlaynay barnaamijka يا barnaamijka galabta maxaynu kaga hadlaynay عاكي هدلي في شيكده وان كستو غلط لا سو قبسدي oo musuqmaasuq waa ataa kadmi waa maasantaa waa kaaga mahad celinaya fikirkaaga axmed nuur barnaamijka aad ulama soconin marka adigoo diyaarsanaan isbuuca dambe maan jeclaan lahaa inaad kasoo qayb gasho qadka xiga dhegeystayaasha ku jira ayaan fursad siinayaa si ay barnaamijka markaa igala qayb galaan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام مارين واجب صلاة magacaaga مارين واجب صلاة maariya haye waxaan looga hortegi karaa si cadaalada dadka si cadaalada u dhaqanto looga hortegi karaa waxaas waxaa loo yaqaanaa musuqmaasuq maariya marka musuq maasuq oo dhan sidee looga hortegi karaa dhegeystayaasha qaadka teleefanada ayaan weli fursad siinaynaa halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaasi wuu mashquulsan yahay sidaa daraaddeed dhegeystaha xiga ayaan u gudbaynaa ayadoo dhegeystayaashu aynu ka codsanayno markay qadka soo galaan inay diyaargaroobaan si markaasi ay fikirka dooda ay horay markaa uga aadaan asalaamu calaykum magacaygu waa yaxya ibraahim waxaan ku suganahay deegaanka warta nabadda barnaamijka galabta intiisa badan waxaa looga hadlayay musuq maasuqna waa waxun waa mahadsantahay aan leena dhegeystayaas dhanka fariinta inoo soo diray inkastoo dhegeystayaasha dhanka fariimaha aynu ka codsanayno inay si fiican usoo qoraan islamarkaana ay isbees u yeelaan qoraalka farta si aan u akhrino barnaamijkuna waa barnaamijkii gaarka aynu ka hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida looga hortegi karo qaadka teleefanada dhegeystayaasha ayaan mar kale ku noqonayaa dhegeystaha qaad ku jira halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacayga waa anisa kaasoo wacaysa degmada wardhigle anisoo barnaamijka ma la socotay haa haddii aan isku dayo horta musuq maasuq waa wax dhan ma aha dhakhaatiirta bis inay haysato meelo badan ee wadanka soomaaliya ka jira ayaa musuq maasuq badan ka jira sidaas daraaddeed waxyaabaha hoos u dhigay oo soomaaliya uu horumar uu la adaa waaye ta kale sheekada markaan dhegeysanayna waxyaabaha ka fahna waxaa kamid ahay wiilka dhakhtarka uu keenay oo la dhahayo yani ha daaweynin in adeerka wiilkan daaweeyey hadduu u ahaan laha wiil wax soo bartay yani damiirkiisa mau siiyeen inuu wiil kale oo walaalkiisa oo meesha joogo uusan daaweynin yani dhibka jirana wataa dadkii aan waxbaranina meesha la geynaya marka isaga qudhiisa waxaa leedaha musuq maasuq ku yimid isaga laftigiisa musuq maasuq ayuu ku yimid wixii musuq maasuq laga bilaabo waxaa isdhihi karaa inay musuq maasuq ku dhamaan karaan sidaas daraaddeed iban haddii musuq maasuqa ay ahaan laheed wax markii laga bilaabo wax fiican xataa qofka ayaa laga yaabi lahaa inuu isbedelo oo damiirkiisa because qof shan sana ama lix sana usoo baranaya dhakhaatiirnimo
يعني مسكين عقليا مدة مو يلس إنه إنه ولادك كفر في دعوة حس أم أقولك تسقرنته وما سنتاي وصفي عن وجه جواب سؤاله وكاجا ما تعلني فكرك مسؤوليتي وحلاسك له لا مامورو برشاد الله كلامرون مني ما وحب الله أبو قبر كان مهران يو وضها إحلو بدعو أيو سما سقيا هاي مسؤوليتي وحلاسك له لا مامورو برشاد الله كلامرون مني ما وحب الله أبو قبر كان مهران يو وضها إحلو بدعو أيو سما سقيا هاي وهجاج dhageystaha ugu dambeeya dhanka fariinta ayaan fursad siinayaa kadibna barnaamijka dhan waan iska soo xireynaa dhanka wicitaanada dhageystayaasha ka qayb gala aad u baahan yihiin assalaamu calaykum magacaygu waa Cabdiraxmaan Liibaan Cali waxaan ku suganahay uu leeyahay magaalada Muqdisho weynta inuu xaafad noo sheegay wanaagsaneed waxa uu leeyahay waxay ila tahay in musuqmaasuqa looga hortagi karo in markaasi qofka Ilaahay uu ka baqo مسؤوليتي وحلاسك له لا مامورو برشاد الله كلامرون مني ما وحب الله أبو قبر كان مهران يو وضها إحلو بدعو أيو سما سقيا هاي وهجاج dhageystayaasha guud ahaan ka soo qayb galay barnaamijka waxaan oo ka raali gelinaynaa qadarka yarka dhanka cilad korontada hawada aynu kala maqneen haddaba waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaasha barnaamijka la qayb galay iyo sidoo kale Shamis Cabdi Geedi oo qeybaha barnaamijka marti ugu ahayd dhageystayaasha waxay heli doonaan abaalmarinta iyo waliba jawaabaha saxda ah inta badan qodobka aynu ka hadlayno ku saabsan ayadoo dooda mar walba ay noqon doonto qodobada hordhaca lagu sheego hadda kadib inkastoo qaybihii hore sheekada oo kaliya markaasi aynu kaga hadli jirnay waxaan codsanayaa dhageystayaashu in markaa dhanka wicitaanada iyo qoraaladaba ay markaa soo diyaar garoobaan intaysan qadka soo gelin si markaa ay noogu kala fudaato malaayiin jeer waxaan mahadcelinayaa dhageystayaashii guuleystay maanta ee su'aalaha ka jawaabay iyo kuwa isku dayay kuwa qadka iminka ku jira iyo weliba kuwa fariimaha noo soo diray in kala gaari weynay haddii aan maanta akhrin weynno maalin kale ayaynu akhrin doonaa sidaa daraaddeed waa baadii barnaamijka oo isku duban oo dileenta barnaamijka midkaan lamid ayaynu kulmayno sidaas iyo nabadgelyo كان مهران يو وضها إحلو بدعو